inaan hargeysa joogo la soo hadlo wuxuu ku yiri gabadhayda waxaad ku tiraahdaa waa lay xidhay niyadaada khayr insha Allah soo bixi doonaa markii aan waqti xadirkii xarigiisii aan ogaaday daanigoo markii hore ahaa mirwo loo shaqo tago ninkeeda masaariif iyo adduunka sugaysa haddana aan la kulmay ninkaagii wuu xidhan yahay adu waxa dhacday isla waqtigiiba waan soo baxay afartii galmaan ka soo baxay harta xagganaan imid subaxii waxaan la kulmay isaga oo lagu xukumay oo la xukumayaba ayaan la kulmay waxa dhacday markan ku yiri garsoorihii intaan u galay garsoore sida maaha ninkan ani dartay baa lagu xidhayaa qabaaladana waa lagu haystaa dulmi ha qaadina wuxuu igu jawaabay garsoorihii kiiskan anigay hor yaala kiis naageed maaha aduu inankii uu ku sii dhagaaday rabitaankiisii buu ka raacay waqti xaadirkii waan isguursanay waananu israacnay xaafadoodii aduu xaafadeydii bay weydiistay xaafadayadii ayaa ii dhistay inankii waxa looga qaatay hantidiisii isagu ku shaqaysanayay waa laga qaatay saasi taasina uga tanaasulay maadaama timiday wax walba inuu waayay iyo inuu ani waayo wuxuu doorbiday inuu hantidiisa waayo daawade halkan aan ku suganahay waa Mansour Hotel sidaad wada arkaysaanba halkan waxaa ka qabsoomay shirweynaha cadaaladda Soomaaliland waxaana joogay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo bahda ku aftirsata cadaaladda sidaas oo tahay maanta iyo birina fasax ayaa la geliyay maxkamadaha iyo goobaha cadaaladda haddaba gabadhan barbarkayga taagan oo lagu magacaabo Deeqa waxa ku dhacday cadaalad darro tii abid ugu weyneed iyadoo beelaha Soomaaliland kuwa ugu ilbaxsan hadii aanay ahaynba kuwa lambar 1 kaga jira waa Nuux Ismaaciil iskuma jiraan reer Shirdoonka beesha loo yaqaano bal sababtay ku timaatay cadaalad darradan lagu sameeyay halkay ka soo bilaamatay ka soo aasaasay ana walaal gabadh reer Itoobiya baan ahay har shaqan deegaan deganahay anigeena kuba waxa dhacday harta markii aan istooranay isxalmanay waxa dhacday aduu family-googa dib badan iyo tacaadi badan baan kala kulanay sababta sidoo guursataa adiga oo reer Shirdoon oo sidoo guursataa inta isma geedaane sababta loo yiri isma geedaan maxay tahay maadaama aanu gabar gabooya ahay asal goor isma geedaan sidoo guursataa aduu inankii uu ku sii dhagaaday rabitaankiisii buu ka raacay waqti xaadirkii waan isguursanay waananu israacnay xaafadoodii aduu xaafadeydii bay weydiistay xaafadayadii ayaa ii dhistay inankii reer baanu noqono sidii baan reer ku deganayn oo aanu deegaan ku hayn harta sheekha muddo 3 bilooda waxa dhacday abtigii baa imiday harta moogtahay wuxuu ku yiri abti maadaama oo ma taqaanaayay kira iyo masaariif laga rabo hadda nin reer la aan noqotay kaali gaadhigaygan soo cisho isaga waan ku soo sheeka dhaafay isaga hantidii iyo wuxuu ku shaqaysanayay waxa looga qaatay hantidiisii isagu ku shaqaysanayay waa laga qaatay saasi taasina uga tanaasulay maadaama timiday wax walba inuu waayay iyo inuu ani waayo wuxuu doorbiday inuu hantidiisa waayo oo aniga i haysto saasay tahay abtigii markuu yimiday buu abtigii ku yiri abti kaali gaadhigaygan soo cisho gawaadhidan hargeysa u baxdaa harta ayaa buu lahaa isagu saasay tahay gaadhigiisii waa laga qaatay waana laga haystay kii abtigii soo cistay uu soo kaxaystay isagoo oon magaaladii soo gelin oo ma taqaanaayay yaa laga hortagay waa la soo sharqoolay ninkii baa waxa dhacday afar qof buu yiri 2 askara iyo 2 walaaladii ayaa ka hortagay waa la soo xiray muddo badan baa raadinayay ilaa 5 habeen baa raadinayay markii uu abtigii ku dhaaday kaalayo gaadhigiigan ku shaqayso miyuu soo raacay mise uu ka dambeeyay may uu soo raacay markii uu soo raacay ayuu aduu abtigii baan soo qaraacay meelaha markay ahayd 12 duurnimo abtigii la soo hadlay qiyaastii gaadhiguna wuxuu soo galaa 12 duurnimo xagan ana meelaha koodii markeed baan soo qaraacan kun manaba tagteen markaas uu goornay oo ninkii nimadoodii baa iga dajistay xagee la tageen ma aqaanin abtigii baa kula mid isaga abtigii baan wada hadlaynaa xageegii baan ku yiri ma aqaani bi goori waxa dhacday sidii 5 habeen anigoo raadinaya ayuu isagii la soo hadlay inaan hargeysa joogo la soo hadlo wuxuu ku yiri gabadhayda waxaad ku tiraahdaa waa lay xidhay niyadaada khayr insha Allah soo bixi doonaa markii aan waqti xaadirkii xarigiisii aan ogaaday daanigoo markii hore ahaa mirwo loo shaqo tago ninkeeda masaariif iyo adduunka sugaysa haddana aan la kulmay ninkaagii wuu xidhan yahay aduu waxa dhacday isla waqtigiiba waan soo baxay afartii galmaan ka soo baxay harta xagganaan imid subaxii waxaan la kulmay isaga oo lagu xukumay oo la xukumayaba ayaan la kulmay waxa dhacday markan ku yiri garsoorihii intaan u galay garsoore sida maaha ninkan ani dartay baa lagu xidhayaa qabaaladana waa lagu haystaa dulmi ha qaadina
wuxuu igu jawaabay garsoorihii kiiskan anigay horyaala kiis naageed maaha caswaalidiin bay horyaala waxaan ku yidhi caswaalidiinka waxa keenay waa sababtayda inuu aabihiis maqli waayo markuu ku yidhaahdo aabihii naagta fur isma geynee fur naagta markuu ku yidhi inuu isaguna diido kadib maqal waayitaan xaggaa ka yimiday ayaa lagu xidhay sax waxa dhacday markii dambe inan baa aniga oo ilmaynaya ila kulmay inankiibaa ilaahay khayr ha siiya garabbi isiiye wuxuu igu yidhi insha allah iska dhammaan doontaa inankiibaa wuxuu igu racfaan baanu qaadaynaa waana ku caawinayaa moogtahay dee sharcigan aniga xaggana ma aqaani dee reerkaygu way degaan waanu nahnay laakiin aniga ma degani deeqa imisaa lagu xukumay ninkaagii wallaahi isaga aabii wuxuu codsaday in 3 sano lagu xukumo laakiin maxkamaddu waxay ku xukuntay sanadii 6 bilood ayay maxkamaddu ku xukuntay haa waayo deeqa markii aad xiriir wadaagta aad noqotayna sheekada aad bilowdeen amaba inanku ku calmaday miyaadan kala hadal oo aadan u sheegin inaanay dadku ka yeelayn sababta waanu sheegay waxaan ku yidhi Suhaybow magaciisa Suhayb baa la yidhaahdaa moogtahay waxaan ku yidhi Suhaybow walaal dee hadda dad iscalmado dareenka hadda waqti xadirkan dareenka horyaala cabir karoon baynu nahay laakiin dib badan baa inoo dambeeyay maadaama aanu qabiilkaas haynaad qabiilka tahay isma geeyaan iyo dee waqti badan oo rafaada ayaanu la kulmi doonaa maadaama ay saa tahay xiriirkeena ha fogeenin wuxuu yiri wax kasto aniga dhanka familkayga iiga yimaada haddaanan ka dhiman waanu dul qaadanayaa marnaba ha iga baqin saasay tahay aniguna dee kulley qofkii aan doortay isagu ahaa maaha dhibka faamigiisuna awalkii hore anigoonba dhibka iigu wadeen haddayna sabcaayaan hadday yacni dagaal noqoto markaas anunba iigu wadeen isaga dhibkii u geystay u badnaa wuxuu ahaa in hantidiisii laga qaato isaga wadadaa la mariyo lagu yidhaahdo waxaa nagu leedahay ma jirto maadaama naagtaa gabooye guursatay dabcan maadaama naagtaa gabooye guursatay maxarin baynu kala nahay waxa dhacday markaa bihihiisa aabihii dhalay baa xaggan jooga kadib sharqoolkaasaa loo maleegay oo lagu soo xidhay de markaa dee xukuumadda somalilan waxaan ka codsanayaa maantana say tahay de waxaa lagu qaadayay shirweynihii cadaaladda Soomaa ayaa lagu qaadayay markaa waxaan ka codsanayaa maadaama ninkaygu xidhan yahay dulmina ku xidhan yahay qadiyadaasna uu ku xidhan yahay waxaan doonayaa cadaaladda odaygayga in layla raadiyo xorriyadiisana gadaal laygu soo celiyo waayo deeqa fariinta ugu dambayseed halkan ka diraysaa maxay tahay ugu dambeyntii hooday fariintan xagga ka dirayaa waxay tahay walaal maadaama qoys islaama nahay oon dee sida xaqaana aan isku guursanay isagana uuna dembi gelin anna aanan dembi gelin waxaan codsanayaa qof kastay qusayso arrinteydana amba ila dareena waxaan codsanayaa inay isoo garab istaagaan cadaaladda odaygayana ay la raadiyaan saa mar labaad xorriyadiisa aan ugu helo maadaama dee si xalaalana isku guursanoon xalaalna isku qabnoon dad guri deganoo guri lana aanu ahayn waxaan codsanayaa inaa odaygayga laysoo sii daayo ereygii u dambeeyey isagoo igula hadlo markii la xukumayna ay ahayd marwey adaan kuu xidhxidhanahay maadaama adig kuu xidhxidhanahay sababtaadan aan u xidhxidhanahay wax kastood igu furdaamin karto aanbaad igu qaban karto bartaa igaga saari karto samee anna awood waan u yeelan waayey waayo sharcigan ma aqaani sharcigii hore naqaanay ee Itoobiya ahaa reerka wadaana laga mariyay waxaana lagu yiri maadaama oo reernimo aydin ku tarayn waalidkiisii dhalay wadadaa ka mara maadaama saa tahay sharcigan ma aqaani laakiin waxaan rajeynayaa cadaaladda odaygayga inaan helo ayaa rajeynayaa layna soo sii daayo ya anigu dee awood waxaan u yeeshay samayn karayna waxay noqotay inaan intan imaado dee bulshada soo garab istaageen idhaahdo cadaaladda odaygayga la raadiya maadaama qoys xalaal oo dee xalaal isku qabayaan ahayn qabiilkaan ahayna waan ahay waanan ahaan doonaa dee laygama bedeli karo isaga qabiilku yahayna uu ahaan doonaa uuna yahay dee manaanan dooran dee ilaahay baa ii dooray waana jecelahay waana ku faraxsanahay anoo qabiilkaasaana wii guursaday dee dad iscalmadayna waanu ahayn